maanta waxaan joognaa koonfurta Suudaan. dalka cusub adduunka. It's the newest country in the world, South Sudan. wuxuu kaliya jiraa 10 sano. So what the cow means for you? Cow. South Sudanese tribes. South Sudan national. Nilotic tribes, guys. Mundari tribes. waxaan soo gaarnay dal loo tixgeliyey inuu yahay dalka ugu cusub adduunka oo mid aad u cusub 10 sano ayay ka soo wareegatay markii ay ka xoroobeen Suudaan. South Sudan. koonfurta Suudaan aan tagno. waxaan ka duulnay Itoobiya inagoo u soconna caasimadda Juba. It's not. We will sleep in Juba today or? Juba waxay noqotay caasimadda koonfurta Suudaan kadib marka ay ka gooday Suudaan, taasoo caasimadeedu ahayd Natoji. qabiilka ugu weyn halkaas waa qabiilka diinka, kuwaasoo caan ku ah dhererkooda. Hey, welcome to South Sudan. waxaan isku dayi doonaa inaan sahmino oo aan baadhno qabiilooyinka ugu caansan halkan. mid ka mid ah sababaha xasilooni darrada halkan ka jirta waa khilaafaadka qabiilooyinka. waxay nagu qasabtay inaan ka soo raacno Juba saacad ka badan si aynu u gaadhno qabiilooyinka Mundari waqtiga qorax dhaca. taasi waxay ahayd bilowga. waxaan joognaa dalka cusub adduunka, dalka ugu da'da yar adduunka. hadda waxaan la joognaa qabiilka Mundari. waxaan baran doonaa sheekadooda, dhaqankooda. waxaan ula jeedaa waa qoysaskooda oo dhan, hantidooda iyo wax kasta. dhacdada looda ee isku soo ururista waqtiga qorax dhaca waxay leedahay hawlo aan meel kale laga arag. ku soo dhowow koonfurta Suudaan. mahadsanid. waa dadka ugu dhaadheer adduunka. waxaan ula jeedaa dadka koonfurta Suudaan waa dadka ugu dhaadheer adduunka. waxay qabtaan dhacdadan oo mid aan caadi ahayn si aan weligay u arkay. waqtiga qorax dhaca iyo waqtiga qorax soo baxa waxay iskugu geeyaan loodan oo dhan. sidoo kale waxay ku shidayaan dab si aan loo soo weerarin oo loo furan loodooda. waxay looda u qiimeeyaan si xiise leh sida ay u qubaan iyo howlaha kale kuwaasoo hadda ka bilaabmi doona. eegiyada waxay ka tirsan tahay qabiilka Mundari. Mundari. haa, tani waa Mundari. Mundari tribe. Mundari. mid ka mid ah arrimaha muhiimka ah waa in innaga dadka Mundari si daacad ah ugu tiirsannahay ilaalinta looda. Cows. imise loo ayaa halkan ku jirta? waxay ku dhowdahay 500 oo 500,000. Yeah. Wow. And all worth a lot for you guys. Yeah, right? a Like lot gold. for us. Like gold. Yeah. Meat, I can sell it. Also for getting married. You can get married. Yeah, with the cow. Who is ready to give me 1,000 cattle? I have a lot of cows. I can get married all the time, all day. qorraxdu way dhacday, laakiin qabiilka Mundari subaxdii rootiinkooda waxaa ka mid ah inay wejiga ku dhaqdaan kaadida. aad bay u jecel yihiin. waa iska caadi markaad la joogto qabiilkan. marka waxyaabaha ugu horreeya ee subaxdii sameeyaan waa qubays Drink the milk. sax, waxayna cabaan caanaha. waxaad u malaynaysaa waxay samaynayaan? haa, waxyaabaha ugu horreeya subaxdii waxay nadiifinayaan meeshan. waxaad arki doontaa sida ay ugu meedhanayaan kaadida, una cabbayaan caanaha looda oo ay u nadiifinayaan dhammaan aagga ka soo baxa saxarada looda. dhibaatada ugu weynaa halkan koonfurta Suudaan waa khilaafaadka qabiilooyinka. waxay isku laayaan looda. loodan waa kuwa aan caadi ahayn oo aad u waaweyn. wuxuu ku meedhanayaa kaadi isagoo isticmaalaya kaadida. wuxuu madaxiisa ku shubayaa.
wuxuu meedhanayaa wejiga isagoo isticmaalaya kaadida looda. Markaa wuxuu ururiyey kaadida oo uu siiyey in wejigiisa ku maydho. To wash his face. Each salt can remove the skin disease. Skin diseases. You have to also put so that you can see that one is becoming brown because of the shower. Nice hair. But did you see how their hair is colored red or orange? That's because of the cow's urine. Washing with it every morning dyes their hair. And they also believe that it protects them from all diseases that affect their skin. Halkan ayay seexdaan qabiiladani. Waa tiro yar marka la eego qabiilka diinka. Qabiilka diinka ayaa ah kuwa ugu badan halkan. Waxay ka badan yihiin 80% dadka koonfurta Suudaan. Waxaad ka heli doontaa magaalooyinka iyo meelo kale ma aha kuwa aad uga duwan Dari. Places, they're not so different from Dari, but only their language is different. And you guys speak Mundari? Mundari language. But you also speak Arabic? Some people? Yeah. Okay, so second language Arabic. Yeah, second language Arabic. Luqadda labaad waa Carabi. Qaar ka mid ah waxay ku hadlaan Carabi. Sababta hore waxay u ahayd luqadda rasmiga ah. Hab ahaantii qabiilka Mundari dhammaantood way hubaysan yihiin. Dhammaantood waxay haystaan hub si ay naftooda u difaacaan. Gabdhuhu waxay isticmaalaan miswar-brass subax kasta. Gabdhuhu waxay sameeyaan kafee subaxdii kadib marka ay qubaan caanaha oo ay cabbaan. Halkan ay digirta kafeega ku shiilaan. Waxay u egyihiin sida kafee subaxdiina. sida uu nadiifinayo looda. This is so ash, they put it with the water, why? To clean? Yeah, clean it. Well, you can see this one is already clean. Now he's clean. Right, yeah. And also they sleep here. To sleep here? Yeah, it is hot. Yeah, you can also sleep there. Okay. Yeah. Waa dalka ugu dagaalbeeleedka badan Afrika oo dhan. Waxay socotay muddo dheer, aad bay u dheer tahay qarnigii 12aad. In the 20th century. Eeg dambaska wejigooda ku yaal. Dambaska yimid dabka oo ay sheegeen inay wejigooda saareen. Subax kasta dhammaantood waxay iskugu yimaadaan group oo kafee bay wada cabbaan. Eeg looda halkan. Tiro yar oo looda ah, hadda loodu way fooftay. Tani waa dhammaadka maalinteena. Waxay tegi doonaan meel ay wax ka cunaan. Halkan waxay iskugu yimaadaan si ay u isticmaalaan bahasha. Waxaan u maleynayaa koonfurta Suudaan oo dhammaan rajaynaya Suudaan ayaa soo socota. Xariiqyada wejigooda ku yaal waa qurux darteed. Sidoo kale si looga sooco qabiilooyinka kale, eeg meeshan waa faaruq. Dhammaan loodu way tagtay. Waxaan u maleynayaa inaad aragtay sida ulaha dhulka loogu arkayo. Waxay tirinayaan loo kasta. Waxay leedahay ul. Haddii mid maqan tahay, waa la aqoonsan karaa kadibna waa la soo raadinayaa. Loodani waa loo si wanaagsan loo dhaqaaleeyay. Waxay leeyihiin hawlo xiiso leh. Mararka qaarna dhexdooda way islaayaan. Yeah, they are practicing. Yeah, training. They are wrestling. Wrestling. Waxay qabtaan hawlo kala duwan, laakiin waxaad la qaadan kartaa maalin dhan. Halkan waa teendho ka dhigi kartaa. And the mixes, you drink it. Yes, they drink it. Wuxuu kaadida ku darayaa caanaha. Waxaan rabaa inaan cabbo. Shall I drink? Yeah. Huh? They go okay. So why they put it like, it's like sweet sugar? Yeah. They put it like a sugar. Sugar. Laakiin waan diiday. Waxaan ku dhawaaday inaan cabbo caanahaas. Waxaan u maleynayay inaan kaliya yihiin caano. Dadku waxay leeyihiin Juba waa meel khatar ah, laakiin waa degan tahay.